qiyaastii 275 milyan oo qof ayaa adduunka isticmaalay daroogo sanadkii la soo dhaafay halka in ka badan 36 milyan oo qof ay u liitaan dhibaatooyin ka dhashay isticmaalka maandooriyaha sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay hay'adda daawada adduunka ee qaramada midoobay sanadkii 2021 qabatinka maandooriyaha waa khatarta ugu weyn ee maanta dadku u dhintaan marka laga soo tago cudurka ugu halista badan adduunka ee kansarka ama dilaaga koowaad qabatinka maandooriyaha waa cudur saameeya maskaxda iyo dabeecadda qofka taasoo marnaba qofka isticmaalo uusan ka ahaan karin inuu joojiyo qabatinka maandooriyaha iyo sida ugu dhaqsiyaha badan uu qofku ula qabsado waa kuwa ay ku kala duwan yihiin heerka khatarta daroogada markaas ay dadku isticmaalaan daawooyinka ama maandooriyaasha qaar sida horowiinta kookiinta abiyoonka morfiinka karaaga iyo maandooriyaha loo yaqaano methamphetamine crystal ayaa ah kuwa ka mid ah kuwa ugu halista badan uguna khatarta badan adduunka ee dadku u isticmaalaan inay ka helaan saqradooda maandooriyaashan ayaa adduunka waxaa lagu tiriyaa heerka koowaad ee ugu khatarta badan daroogada sababtoo ah waxay geystaan waxyeelo aad u badan oo ku gabagabooba geeri degdeg ah dadka qabatimay maandooriyaashan ayaa waxay u isticmaalaan mid walba qaab iyada u gaar ah ay ugu teelagaleen inay u adeegsadaan qaabkaas si ay jirkooda u gasho qaarkood waxay u isticmaalaan inay ka qaataan sanka iyadoo budo ah qaar kalena waxay u adeegsadaan inay iskugu duraan qaab cirbad ahaan ah halka qaarka kale ee soo haray ee u isticmaalaan inay shitaan ama inay u cunaan qaab kiniini ahaan ah haddaba daroogooyinkan markuu qofku qabatimo ama balwad joogta ay u noqdaan ayay waxay noloshiisu isku beddeshaa mid mugdi ah oo qarka u saaran inuu u dhinto isticmaalka maandooriyaashaas waxa ugu daran ayaa waxay tahay markuu qofku qabatimo maandooriyaha inay ku adkaato inuu iska daayo ama uu iska joojiyo mar kasta oo isticmaalka maandooriyaha qofku uu ku sii kordho waxaa ku sii adkaado inuu qofku joogo daroogadaas la'aanteeda wakhtigii uu isticmaali jiray haddii ay dhaafto daroogada wuxuu u baahdaa qofka qiyaas badan oo daroogo ah si uu kor ugu soo qaado baahida badan ee jirkiisu u qabo maandooriyaha dadka isticmaala maandooriyaha waxay qabatimaan iyagoo og inay dhaawac u geysanayso maskaxdooda iyo jirkooda ayay haddana qabatimaan iyagoonan awood u lahayn inay iska joojiyaan waxayna noloshooda god ugu ridaan si ay u helaan saqraddaas gaaban ee rabitaanka ah dhibaatooyinka ay maandooriyaashan u geysteen dadka isticmaala waxaa ka mid ah cadaadiska dhiigga oo kaca wadna xanuun dhibaato dhanka xasuusta ah isku dabarid la'aan dhanka hadalka ah neefsashada oo ku adkaata muuqaalka qofka oo qayrma iyo xaalad kale uu qofku noqdo mid aanan isdaryeelin isagoo noqdo mid wasaq badan oo ura oo dadka agtoodana ka noqdo mid aanan sharaf iyo ciso looga heenin haddii uu hanti haystana wuxuu ku baabi'iyaa daroogadaas daraaddeeda isagoo maalinba maalinta ay ka dambayso dhulka geliya wax walba oo ugu muhiimsanaa noloshiisa intaas oo sifo ah kadib qofku isagoo ku sugan ayuu wuxuu ugu dambayntii ku dambeeyaa ama inay isagu disho daroogada iyo ama inuu isagu isdilo aakhirka sida inta badan dhacda mideeda kale waxaa jira marxalad labaad oo dadku u qabatimaan maandooriyaha inkastoo xoogaa ay ka halis yar yihiin marxaladdii koowaad ee daroogada laakiin marxaladdan labaad ee maandooriyaha iyaduba waa mid xambaarsan khatar aad u weyn oo wax u geysata dadka isticmaala waxaana lagu tiriyaa marxaladdan sida maandooriyaha sigaarka khamriga shiishadda iyo xashiishka iyadoona mid walba oo ka mid ah maandooriyaashan uu wato khatartiisa gaarka ah oo sannad kasta adduunka loogu dhinto cudurro ay sababeen tusaale ka soo qaad khamriga keligiis ayaa wuxuu keenaa inay sannad walba u dhintaan sababtiisa dad fara badan oo adduunka ah cabista khamriga faraha badan ayaa waxay keentaa kow khatarta shilalka oo bata waxay keentaa cudurrada beerka wadna xanuunka waxayna keentaa noocyo fara badan oo kansarka ka mid ah iyo sidoo kale waxay sababtaa dhibaatooyin ay u geysato dumarka uurka leh dhanka kale ku dhowaad 15 milyan oo qof ayaa la ildaran adduunka dhibaatooyin uu keeno khamriga tirakoobyadu waxay sheegayaan in Mareykanka 2019 oo kaliya ay 95,000 oo qofood u dhinteen arrimo la xiriira khamriga iyo sidoo kale in ka badan 10,000 oo qof ayaa sanad kasta ku dhintay shilalka iyagoo markaas sarqaansan sidoo kale intaas waxaa u sii dheer markay dadku khamriga cabaan waxaa macquul ah inay naftooda waxyeeleeyaan ama xitaa inay dilaan dad kale sidaas daraaddeed khamrigu wuxuuba ka sii khatar badan yahay marmarka qaar markii loo fiirsado marxaladda heerka koowaad ee maandooriyaasha sidoo kale waxaana la iska indhatiri karin khatarta baahsan uu sigaarku sababo
iyadoo qiyaastii maanta uu marayo in 11 qofoodba uu hal qof ka cabo sigaarka. celcelis ahaan 450 kun oo qof ayaa u dhintay dhibaatooyin uu keenay sigaarka oo ay ka mid tahay kansar ku dhaca sanbabada, cudurrada wadnaha iyo xaalado badan oo dhanka neefsashada ah. tanna micnaheedu waxay tahay ku dhowaad maalin walba inay u dhintaan adduunka 1300 oo qof. haddaba maanta waxaa jira dad fara badan oo magac ku lahaa adduunka ama caan ka ahaa oo markii ay qabatimeen maandooriyaha ay noloshoodu noqotay mid baaba'day. qaarkood waxay ka dhaceen nolosha forever, qaar kalena waxay noqdeen kuwo muuqaal ahaan iyo nafsad ahaan noloshoodii ee aad isku beddeshay. shakhsiga koowaad aan tusaalaha u soo qaadan karno waa raabarka ama fanaanka caanka ah ee DMX. DMX keliya ma ahayn raabar ama fanaan, ee sidoo kale wuxuu ahaa jilaa filmo badan wax ka matelay oo uu ugu caansanaa filimkii uu la sameeyey Jet Li ee Romeo Must Die. ayaa aktarkan in badan oo noloshiisa wuxuu qabatimay daroogooyinka kuwa ugu halista badan oo ay ka mid tahay horowiinta, kookaynka iyo midda kale ee loo yaqaano karaag kookaynka. isagoona aktarkan mar uu interview ama wareysi uu bixiyey ku sheegay inuu daroogada uu ku bilaabay markii uu jirsaday da'da 14aad. ugu dambayntii waxaa la sheegay inuu DMX u dhintay wadna xanuun ay sababtay kookayn badan oo isticmaalay oo kala xirtay wareegga xididada dhiigga gaarsiiya maskaxda. DMX wuxuu dhintay 2 Abriil 2021 isagoo markaas ahaa 50 sano jir. run ahaantii muuqaalkiisa iyo da'diisa dhabta waxaa u dhexeeya farqi weyn, iyadoona qabatinka maandooriyaha uu muuqaalkiisa ka dhigay mid in badan ka weyn da'diisa dhabta ah. qofka labaad aan tusaalaha u soo qaadan karno waa Lisa Robin Kelly oo ka tirsaneyd shirkadda Hollywoodka. Lisa Robin Kelly waxay caan ku ahayd musalsalkii 70 Show ay wax ka matashay sanadihii u dhexeeyay 1998 ilaa 2003, iyadoona laga saaray doorkii ay ku lahayd musalsalka isla sanadkii 2003, waxaana lagu bedelay waqtigaas doorkii ay matalaysa aktarad kale oo la yiraahdo Christina Moore. intaas kadib jilaa walba oo wax ka matalay musalsalkii 70 Show oo asxaabteeda ka mid ahaa wuxuu mid walba hore u sii qaaday inuu horumar iyo guulo la taaban karo uu ka gaaro shirkadda Hollywoodka, halka Lisa Robin Kelly ay ku dhibaatoonaysay inay hesho doorar kale oo kor u qaada xirfad jeliinkeeda. balse intaas kadib waayuhu waxay noqdeen kuwo ku xumaaday Lisa, iyadoona u jeesatay dhankaas iyo caalamka muqaadaraadka, waxayna qabatintay haddii ay ahaan lahayd qamri, kookayn, horowiin iyo nooc kasta oo maandooriye ah. iyadoona booliska ay marar badan u soo xireen arrimo la xiriira muqaadaraad iyo inay kaxeynaysa gaarigeeda iyadoo cabsan. intaas kadib Lisa waxay isku dayday inay iska joojiso muqaadaraadka nolosheeda baabi'iyey. isku day waqti yar oo gaaban kadib waxay awoodi weysay inay ka dhex baxdo caalamka muqaadaraadka. nasiib xumo Lisa waxay dhimatay 15 Agoosto 2013 iyadoo 43 jir ah, waxaana la sheegay inay u dhimatay isticmaalka xaddi fara badan oo maandooriye ah. shakhsiga saddexaad aan soo qaadanayno waa Macaulay Culkin. Macaulay Culkin waa wiilkii yaraa ee caanka ku ahaa filimkii shactirada badnaa ee Home Alone oo soo baxay sanadkii 1990. ayaa ugu horreyntii waayihiisii wuxuu caan ka noqday shaneemooyinka adduunka, isagoona filimkaas iyo kuwo kale uu horraantii waayihiisii ku kasbaday lacago malaayiin dollar ah. balse markuu gaaray 15 sano wuxuu dhinac maray taladii waalidkiisa, isagoo kala hor yimid amar diido iyo inaysan isagu u talin, isagoona wakhtigaas waalidkiisa u sheegay inuu isagu maamulan karo hantidiisa oo markaas gaaraysa 25 milyan oo istarliin. wuxuu bilaabay inuu ku dhex dhumo caalamka muqaadaraadka iyo maandooriyaha, isagoona u bilowda mustaqbal mugdi ah oo god dheer ku riday hankii iyo rajadii laga lahaa. ugu dambayntii sanadkii 2012 ayuu ka soo muuqday sawirkiisa mid ka mid ah majalladaha ka soo baxa Mareykanka, isagoona markaas gacanta ku sitay cabitaan energy ah oo ay ka muuqatay tabardari zaa'id ah. wuxuu qabatimay sigaar, qamri, xashiish, kookayn, horowiin iyo weliba isagoo geysta dambiyo badan oo loo xiray. shalay wuxuu ahaa qof laga yaqaanay adduunka, laakiin maanta wejigiisa in la gartay iska daayay, xitaa ma jirto cid taqaana magaciisa.